لتليها قدوميها دكتور شريف يا قاسمها حفيزك قدوميها مدن داود دمانتين وحن لها سودو هذا حيدين سودو وين يا أبناء جامعة مقدشو احنا مدحضة جامعة هيران runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno gudoomiyaha xogeenka jaamacadda Hiiraan Axmed Maxamed Nuur oo joogo camiidka kulliyadda waxbarashada ahna agaasimaha imtixaanaadka sare Ustaad Khalid Maxamed Daahir camiidka kulliyadda tarbiyada Sheekh Abdinaasir Abdullaahi Maxamed camiid kulliyadda dhaqaalaha Sheekh Abdullaahi Xasan Barqadle عميد كلية دبارها أستاذ مختار iyo rag kaleeto oo mas'uuliina ahna inta badan abnaa jaamacad muqdisho runtii waxay noo tahay dareen iyo firfircooni dheeraad ah inaan igu soo dhaweyno gobolkan Hiiraan iyo jaamacadda Hiiraan iyo ardayda reer Hiiraan oo u heelan soo dhaweyntiina iyo ka warqabkiina jaamacadda muqdisho markaan lagu soo wargeliyay ziyaaradiina maalmeen ugu qaadatay inaan idin sugno aadan aan ugu faraxnay inaad imaataan gobolka Hiiraan oo gobol taariikh kale waxbarashada ah wax badan markaan jaamacadda dhiganayna aad qaarkeed nagu la kaftami jirteen gobolka qoonada soo dhawaada gobolka wabiyada soo dhawaada gobolka caanaha soo dhawaada laakiin bariyahan dama gobolka nabadgelyada waxa waay waxyaabo yar yar aan dhax galay welcome inkastoo daalantiina safar ku timidaan laakiin كلمتين يرى هردعة عن أباهنا هاي ودين سوريجيني يا ميكروفون كان إن شاء الله دكتور أقاسمها مدن داود ويلكم كوفدي أهان شعورتا iyo maaragtay soo dhaweynta qiimaha badan oo maanta aad noo fidiseen markii la yiraahdo jaamacatu Hiiraan waxaan ugu soo dhaceysay hooyada jaamacadaha ee gobolka xaqiiqatan waxa muuqato sida aan madax uga tihiin gobolka haddana waxay sii ziyaadisay jaamacadda muqdisho xiriirka aan la leenahay jaamacadda Hiiraan aad ay u sii weynaysay waan idinkaga mahadcelinaynaa mas'uuliyiinta iga dambeysay ayaa kelimadihii munaasabka ah ay dhihi doona gudoomiye ku-xigeenka ayaa socdo aniga waxa idin soo gudbinayaa kelimadii iyo salaantii ay idinkaga wada gudoomiyaha jaamacadda oo hadda safar ugu maqan dalka Turkiga wuxuu idinku soo salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiyaha aad ay u jeclaa inuu safarkan soo hogaamiyo laakiin duruufo iyo arrimo shaqo oo u jooga dalka Turkiga mar dhow ugu baxay 2 maalin ka hor runtii wuu jeclaa wafdiga inuu hogaamiyo laakiin duruufo ayaa keenay inuu maaragtay dalka uga safro salaantiisii ayuu wuxuu yiri hal iga gaarsiiyo safarka xigana wuxuu rajaynayaa insha Allah inuu asaga soo hogaamiyo aad u mahadsantihiin jazakumullahu khair bismillaah horta soo dhaweynta maanta aad samayseen adinka ma dareemi kartaan qiimaheeda soo dhaweynta maanta ay samayseen qiimaheeda ma dareemi kartaan waxaan u malaynayaa maalintii ugu horeysay ma laga yaabaa ay tahay inaad jaamacad soo dhaweysaan annaga safarkan aan jaamacadaha ku marayno Kismaayo ayuu ka soo bilowday gaalkacyo ayaa ku xigtay safarkii ugu dambeeyay gaalkacyo anigii gudoomiyaha ee aan tagnay hadda waxa laga joogaa usbuuc iyo barbaan u malaynayaa ayaan gaalkacyo ka imaanay si fiican ayaana loogu soo dhaweeyay soo noqodkeeni waxaan ka sheekeynaynay usbuucii xigay jaamacadda waxa laga hadlayay gaalkacyo sidiina loogu soo dhaweeyay yani weligay ma arkin aniga siyaasi ma noqonin siyaasiyiinta si loo soo dhaweeyay ma garanayo telefishinka baan ka arkaa laakiin gaalkacyo sidiina loogu soo dhaweeyay si caadi ma ahayn hadda markaan imaaday memory-gayga waxa ka tirtirmay gaalkacyo hadda laga bilaabo waxaan rabaa inaan siyaasi noqdo si sidaan oo kale markasta la igu soo dhaweeyo waliba doorashada ugu horeysa meeshan soo ziyaaranaya waxa waay beledweyne
saaxiibaday kale aniga waxaan uga gadisanahay waa markii igu horeysay oo beledweyne aan imaado beledweyne sheekooyin badan ayaan ka maqli jiray beledkii qoonaha uu dhahay saaxiibkay aniga magac kale aan u haystaa beledweyne waxaan u haystaa beledkii beerlula markaan soo baxay saaxiibada waxay leeyihiin ha soo bixin adigoona buundada agteeda tagin oo beerlula soo salaamin hadda markaan soo socday waa la iga ballan qaaday in la igeynayo buundada galab casirkii ee mase subaxii xilliga qabowga xilliga hatraawiya ya marka maasha Allah waxyaabaha aan u nimid waxa waaye marka u horeysa labada jaamicadood calaaqaadka ka dhaxeeya in aan si fiican u soo dhuujinno madaxda ay isbarato labada jaamicadood ardada ay isbarato barnaamijkeena waxaa ku jira barnaamijyo la yiraahdo exchange student exchange iyo staff exchange iyo faculty exchange oo ardayda xamar jaamacadda muqdisho ay halkan yimaadaan ku martigelisaan adinkan xagga leedinku martigeliyo macallimiinta halkan lagu martigeliyo macallimiintana xagga lagu martigeliyo tababaro oo muxuu ahaa seminaaro xagga lagu qaban doono aad ka soo qayb gashaan waqtigii la isla fahmo marka calaaqaadkaas dhisidiisa iyo xoojintiisa waxay ka mid tahay waxyaabaha aan halkan u nimid midda kale waxa waaye inta aan joogno in aan isdhaafsano fikrado dadka ahlul cilmiga markay meel isugu yimaadaan waxay ka sheekaystaan ama ay isweydaarsadaan duruufaha jira beledka ka jira kuwa wadanka ka jira kuwa geeska Afrika ka jira marxaladaha uu hadda maraayo waxyaabaha ugu soo socda dadka aqoon-yahanada waxa la rabaa meesha ay joogaan inaysan ku ekaanin inay ka hadlaan waxa markaas jira oo dorosaan oo ay ka hadlaan haday arinta sidan ku socoto sidaas ayaa soo bixi doonta doorka marka uu leeyahay qofka aqoon-yahanka qofka wax bartay oo bulshada inteeda kale uu uga horeeyo waxa waaye bulshada inuu hoggaan u noqdo hoggaankaas oo in isbedel uu ka dhaco bulshada waxa la socotaan geeska Afrika aan ku noolnahay wadamo tartan nagala dhaxeeya ayaa jira tartan horumar cilmi waxaad la socotaan wadamada dariska meesha ay marayaan hadda iyo meesha aan marayno nabadda yar oo la haysto waxa la rabaa in laga faa'iideysto oo la dhiso bulshadana waxay ku dhisantaa cilmigana waa meesha hadda aan maqaamkeeda joogno marka arrimaha aan ka hadli doono waxa waaye fikradaha isbedelka horumarka iyo doorka qofka aqoon-yahanka uu ku leeyahay bulshadiisa muxaadarooyinkaas waqtiyada loo qabto ayaan si fiican u la faguri doonaa intaasaan kusoo keenaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi markii la yiraahdo waxay ku sii qaadaysaa wax kale oo ka fiican inuu sameeyo laakiin in la isqiimeeyo ayaa mar walba fiican waana qiimeeyeen insha Allah annagana mana is amaani doono mana is dhigan doono intaan in ka badan inaan la macaamilaan aan rajaynayna insha Allah tiimka jaamacadda Hiiraan intooda badan waa sidii la idin sheegay waa jaamacad Muqdisho dhamaantood haddii aan la dhihin inta u badan marka insha Allah taala xiriirkii iyo in wajiyada xogaa la isgaran waa laga yaabaa anoo kale inta waxa nin duqaan oo xilli hore aan ka baxay marka dadkii garanayeen marka dadkii garanayeen hadda aysan joogin laga yaabo marka waa sharxi doonaan aan sheegi doono hadaan lagu sheego marka aad ma santiin xilli kulun oo ku jirnaa soo dhawaada mar kale إن شاء الله تعالى وانت سنويك ما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله. إسكا كل ذاك الجدسان معلمينتا دمان أرضيدا جامعة هيران هذا مفرحنا مانتنا نصور ويسان لقى صوب الله إيربوركا
ilaa meeshii aan maxaan hoteelkii aad nagu soo dhaweysaan oo ku faraxsannahay ani maraba cabsaday waa iska siiyey baashii qorta waxaan isu malay inaan maxaan dhahaa bal ma wasiiraa tahay mise makaragaaway marka magaalada muqdisho la joogo wasiirada iyo maxaan dhahaa dadka waaweyn loo geliyaa marka intaan xishooday aan iska siibay gabaraan u dhiibay maaqan gabadheed aad ugu faraxsanahay maxaan dhahaa soo dhaweyntan aad u qurxoon waxaan u nimay markaa inaan jaamacadda hiiraan aan noqonno bahwadaag maxaa laga wadaa bahwadaag maxaa laga wadaa haddii la dhaho bah la dhaho wax dhiman ma leh dadku isku bah noqdaan waa isla dhasheen soo ma ya cabdinaasir waxaan dhihi jirnay qoonadii aan dhihi jiray waagii maxaan kulidoo dhigan jiray marka haddii maxaana ay joogaan mirihii jaamacadda waxaana isku bahannahay marka waxaan rabnaa inaan ka dhabayno bahwadaagtan laga dhabeeyo oo aan ka shaqayno oo adinkana ka shaqaysaan horumarka labada jaamacadood intuu sheegay Dr. Shariif uu sheegay iyo in kale anaga hoos aan hadli doonno hadda ardayda waxyaabo qaar looma sheego wax hoos jir maxaan dhahaa ya ila mogta bahda marka guriga la joogo isku si looguma hadlo soma ilmaha waa isla hadlaan wada dhashay hooyooyinka waa isla hadlaan aabayaasha waa isla hadlaan marka insha Allah taala waxa jiri doona waxa maxaan hoos loo sheegi doono laakiin waxaan naga dhabaa in maxaan aan ka qayb qaadanno horumarka guud ahaan jaamacadaha gaar ahaan jaamacadda Hiiraan inaan ka qayb qaadanno hadday tahay xagga manhajka hadday tahay xagga tababarada hadday tahay tayeynta maxaan shaqaalaha ama maxaan dhahaa dadka ka shaqeeyo kulliyadaha dadka ka shaqeeya maamulka inaan ka qayb qaadano si loo tayin lahaa dabcan annaga tababaro badan sameynaa jaamacadda macallimiinta tababara loo sameeyaa maamulka loo sameeyaa marka waxaan rajeynayaa in lagu daro macallimiinta lagu daro jaamacadda waxay leedahay meelo la seexday leedahay inay seexdaan meeshooda maxaana ay joogaan ay ka tababartaan sidoo kale maamulkana ay ka qayb qaataan marka aad u mahadsantihiin waa bilow fiican maanta insha Allah taala waa wada joognaa bari iyo baridan waa wada joognaa wixii marka aan qaban karno jaamacadda dhexdeeda ama tababaro ahaadaan ama ahaadaan muxaadaraad maxaana caama oo qaban doonaa marka soo dhaweyntiina ku mahadsantihiin jazaakumullahu khayran wa shukran bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah ilaah ma hadda iskala maanta waxaan soo dhaweynay madaxda jaamacadda muqdisho annagoo ah jaamacadda hiiraan aad ayaan ugu faraxsanahay in ayna soo booqato jaamacadda muqdisho kulamadeena dambe ayaan ka wada hadli doonaa wixii hadal ah laakiin waxaa ka socdo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda la taliyaha madaxa jaamacadda muqdisho iyo agaasimaha xafiiska rektorka jaamacadda muqdisho dhammaantood waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada jaamacadda hiiraan aad ayaan ugu faraxsanahay booqashadii Baba